ما شاء الله هذا القوة مسألة وبدأت إن وحاجروا narrative أما قابل أن يرزقوا أركان قاصدة من الصومالية هذا الشق نوع يعني وحلا الشيء هذا دنيا فربان شقوين فربان كريم هاي وعكس على الدراسة هذا إن شهادة أي بنتان عقبات كتير أنا باج لارا متى حبيسنا في الاستواء يعني أنا ما باش أجلس واحد مركب عقبات هذا كذا experience هذا الشيء جال سيدنا يلا عقبات ممكن شهادة أي بنتان من لو بني عقبات ممكن هذا والله أنت تحكي سؤال رد السؤال وقت كده نقول ولين هذا أساس زين أطلع لأنه سؤال من هنا تعمل يسوى عقبات ما أها الشهادة لكن عقبات وحبك فكرية غير فكرية الدوكا جاءنا الشهادة هي سطو وحكم مثل إنها واحد قبكرت أصلا كرت أساس يقتله الدوكا كم بالله كم بالله لكن هو كم بالله حاصل يكم بالله إذا القف كأنه يرى ما هو جامعات كبره وحاجة فلسفة خلدة وصير يكون بهذا الجريني أو أحقف كسته لما يرى جامعات كبحة وإنه حفيظ في الإسلام وإنه بابور عق ماركتا وإنه هلا وإنه تنظر غلط ضرب كبلها سيدا حاسة وإنه هلا بسيدا حاسة مسيجلين قولوا هو يريد سنة عجلة ولا لأنه هو على دغ واحد كذا أنت سوا فلسفة بكل كلمة بقول خلدة آدي يكون تنقول خلدة وحلو بها بل يريد إني ماشي كسر الدجاج كسر حاجة خبرة محاجرة أنا كيس براكتيكال waxaa jira laba luqad dhalinyaro ah oo dadkii aan wax ka bixin jiray waxbarashada ka bixin jiray ay waxbarashada markay qaateen labadoodii waa u yeeray waxaan ahay maxaa qabtaa idinka mid ka mid ah automatically aragti ayuu lahay wuxuu dhahay okay ani wax kale ma kaa rabin waxaad ii samaynaysaa $500 isii $500 6 bilood kadib waa kuu soo celinaya waxa uu rabay waad u cadaayay macnaha muxuu sameeyey marka yarkaas $500 siiyey wuu qaatay bakaarahu tegey wuxuu bilaawday maaragta gaar gacan ka bilaabay yani gaar gacan ayuu ka bilaabay asoo dadana aqoon oo aqoonta soo qaatay ayuu ka bilaabay lana vision iyo aragti waxa ku jirta inuu lacag sameeyo inuu milyaneer noqdo soo ku sameyn kara waa inuu meeshaas ka bilaabo hadda maanta aan taaganahay 5 sano ka hor 4 sano ka hor 2017 hadda maanta aan taaganahay waa nin ganacsada oo bajaajil oo suuqyada oo macaawil oo alle oo adduunka gala oo nin naftiisa inta maaliyay waalkiis maaliyay يعني واحد كاستسمي أو حد أسيق لو توفقي ولا ليه هاي محل لا لو سنة كهرباء هاي ليك كلام وحنا هاي محل تاني وأنا راح أحفظ وحنا طلاب وأنا كبلها وحنا ما ركتا إلى بابور أنا هلا هدي أنت تسألني ليه ما يجامل الله كل هو ينجوبي وحنا صغيرين هنا إلى هذا حواي وأخش غلا مفهوم صو اللي يرد فكر كأ ما كان بالآن ما ركتا جامعة كسر وحنا كبلها كبلها فكر كاسو معها فكر ومناسبة وحلو بهي قفوا إنه أود ديسا إيه وحو سمين كرا أو قطة هذا تضرب وركب بالله بكرت أو مليونير طبعا كوش قيم وضرب كوش قيم أهلا وسهلا وافعتها لكن أبو وحبه أنت سركب بالله إلى كل جبته واحد مثلا أقبل الكرام معه الله يسلمه مثلا أنا وحنا أحكي اللي يروحون في مصر هذا أي كمان هاي اللي يروحون أحكي للسري فرصة إنه $100 أهل المشقية $100 يعني سي أصلا جامعة هذا سوري markaas oo aan jaamacad soo dhameeyay miyaan ku shaqeynaya ku shaqeynaa $200 waxa iga roodina oo maaragta cajalada idan waxaan ilaa aniga shaqada waddanka ku jirtay waxa ka jira aragtida dhalinyarada ayaa khaldan oo u baahan isbedel sameeyo haddaad rabto adduunka inaad horumar gaarto hoos laga bilaabo hoos markaa ka bilaabo kadib development socod ilaa aad ka gaarto meesha ugu dambaysa insha Allah taala marka fikirka dhalinyarada inay wax ka bedelaan waaye si ay naftooda u bedelaan insha Allah كم جعلهم كونترول dhalinyarada aan laba dhinac inay shahaado u direen caqabad laakiin dareemaan xirfad iyo dadka leeyihiin hadii soo galaan absolutely waxa caqabad ah shahaado ma aha waxa caqabad waa dariiqada qofku uu fikirayo ina shahaado haysato macnaheedu kama dhigin ina nolosha ku guuleysanayso macnaha ama ardayda inuu marka qaar xataa shahaado jaamacadeed iyo PhD waxa ka muhiimsan ina xirfad aad ku shaqeyso aad skill ma leedahay ku shaqeyso mesela quraa'iyada ina buug qorto buugga soo qorto maanta $10 halka buug aad gadato إيه إن تشتغل شهادة هي ستو يا مهندس سكيل كاس إن لها هي مركز على كل كميز سقف القليلة لو حقول تلنا إن اسمه جسم حقق مع حرفة أو هذه قد تركت هاي أو بشدة ألونا يكتا وما هي بدأ الوين كان this is not developed جريسو أي كم إنسان شهادة عقلها شهادة جامعة إن هي ستو في عنها it's very good وطلبوا من إنسان هو الله قالوا لكن اسمه ألف ما هو مفهوم سو ماشي أي حقوق قبضة nolosha ka bilaabo hore u soco ila bulshada gaarayso insha Allah